waxaanu nahay geeska guda ee gurgurtee galab carraaba waxaanu nahay kuwa gamcayn gaarahoo gogolna doonin garasho weyne geesigaasu guulma loo horkacay gargaar garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalooyinka mataanaha ah waa Minneapolis St. Paul International Airport ayaa waxaa ka soo degay galabta wafdi uu hogaaminayo wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland Faarax Cali Shire isla mar ahaanta waxaa gegada diyaaradaha ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah jaaliyadda Puntland madaxweynaha mustaqbalka soo socda ee Puntland ku soo dhawow magaalooyinka mataanaha ah waxaan leenahay maadaama jaaliyadda reer Puntland ee degan magaalada Minnesota soo dhawow mudane wasiir and future president isku soo dhawow waxaan elboorka Minneapolis ama Twin City aan ku soo dhaweynaynaa Faarax Cali Shire wasiirkii maaliyadda aan Puntland annagoo gacmo furan aan ku soo dhaweynay aan dadkii Minneapolis half magaaladii hadda banaanka taagan yihiin waxaan rabnaa inaan musharax ana Faarax Cali Shire waxaan rabnaa xaflad weyn ah inaan ugu dhigno Minneapolis aan ku soo dhaweyno oo jaaliyadiisii oo madaxda u ahay mustaqbalkuna madaxweynuhu u noqon doono hadduu Ilaahay yiraahdo inuu magaciisa warar aan kala qaadano jaale wasiir soo dhawow Minneapolis salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaale madaxweyne ku soo dhawow magaalooyinka mataanaha bulshadii oo dhan baa ku soo dhaweynaysa oo joogtay mataanaha iyo Minnesota gacmo furan baan ku soo dhaweynaa diyaar baan ku nahay gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaanu nahay geeska guda ee gurgurtee galab carraaba waxaanu nahay kuwa gamcayn gaarahoo gogolna doonin garasho weyne geesigaasu guulma loo horkacay gargaar soo dhawow Faarax Cali Shire oo ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha musharaxa cusub nagu soo booqday magaalada Minnesota aad iyo aad ku soo dhaweynaynaa taageeradaada nahay waa ku sugaynaa maanta iyo maalmo badan haddana soo dhawow waan heli doontaa insha Allah waxa raadinayso muddaada ku taageersanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan magaalada Minnesota ku soo dhaweeyo wasiirkii hore ee maaliyadda Dr. Faarax waxaan leeyahay Dr. Faarax welcome to Minnesota anoo ku hadlayo magaca reer Minnesota ana isleeyahay qof kale oo seniority iga haysan jirin marka welcome waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa musharax Faarax oo noogu yimid magaalada Minneapolis waxaanu leenahay musharax Faarax soo dhawow waanu kala war qaadanaynaa waanu ku taageersanahay waxaanu ku rajaynaynaa Ilaahay idinkii inaad maaragtay ku guulaysatid xilka aad maaragtay ku dadaalaysid iyo maaragtay miisaaniyadda aad saartay iyo sida sharafta aad noo soo gaartay waanu ku dooranaynaa haddaynu nahay jaaliyadda reer Puntland ee halkan joogto qaasatan anigoo ku hadlaya afkii ama mas'uuliyaddii reer Puntland qaasatan gobolka Nugaal hadda islaamkii mar haddii uu codka ku siiyo waxaan filayaa inaanu waxba ka maqnayn soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim anoo magacayga waa Ismaa Khaliif Sheekh Maxamuud anoo ku hadlayo magaca gabdhaha Puntland waxaan ku faraxsanahay maanta inaan soo dhaweeyno musharaxa Puntland Faarax Cali Shire ku soo dhawow Minneapolis Faarax gacmo furan wasiirka oo u mahad celinaya dadkii soo dhaweeyay ayaa waxa uu ku bilaabay hadalkiisa sida tan iyo sidoo uu arko imaanshaha magaalooyinka mataanaha ah Faarax Cali Shire ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Somali Cable adoo israacsanaya qodobka ugu horeeya aan rabay inaan ku weydiiyo waxa uu yahay waa maxay sababta aad u timi dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka ay ku badan yihiin jaaliyadda Soomaalida bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiyya bacd aad baan u mahadsantahay cawil waxa weeyaan waxaan u imi inaan soo booqdo jaaliyadda Puntland ee ku nool halkan aan ku kala war qaadano xaaladaha ka jira wadankii iyo waxyaalaha ka socda waxaan kaloo rabaa inaan maaragtay kala hadlo arrimo Puntland iyo Soomaaliya intaba ka jira nagu soo socota ee Maarso 10keeda ayaa waxaa lagu qaban doonaa Double Tree Hotel oo ku yaala xaafadda Salisbury munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Puntland munaasabadaas ayaa looga gol leeyahay xog waran iyo soo dhaweyn loo sameeyay wasiirka Awil Nuur Shire telefishinka caalamiga ee Somali Cable Minneapolis dalka Mareykanka